عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أمد الصوماليات ميلو البود جوكتين وحان فيليا إناد عافيماد قبتين سيدان أنيقا بقو عافيماد قبو ونهرتين أوفرديو waxaan idinka codsanayaa haddii idin soo gaaro fiidiyogan inaad subscribe like comment share intaasba way xaqiina like fara badan iska saara si uu fiidiyoga oo meel sare u gaaro like to lacag baahan anagana waxay noo tahay dhiirigelin maanta mowduuceenu wuxuu ku saabsan yahay wiilkii afarta xaas guursaday haddana social media maalmahan lagu falaqeynayo waa la falaqeeyay in badan laga hadlay qof walbana waxay meel bay ku saleysay oo fikirkeeda ka dhiibatay balse aniga run ahaantii markaan arkay nin afar xaas qabo ee afartiisa xaasna social media keenay haddana afartii xaas ay afkooda ka cadeynayaan inay ayaga is ogol yihiin waxay ila noqotay arrin aad iyo aad cajiib ah run ahaantii waa arrin cajiiba way adag tahay nin inuu afar naagood inta guursado haddana afartii naagood oo is ogoleysiyo oo meel isku keenay ninkaas waxaan dhihi karaa waa nin nimanka ka badiyay ninka afar naagood inta guursaday hal meel iskugu keenay is ogoleysiiyay raali haddana ay iska yihiin ninkaas waxaan dhihi karaa waa nin nimanka ka badiyay waxaana waaye ninka la dhaho waa rag aniga saasay fikirkayga ila tahay laakiin maanta waxaa soo ifbaxday Farxiyo Kobayare oo fiideo iska soo duubtay oo soo sheegtay ninkan in laga soo masaafuriyay wadanka Mareykanka sidaasna shilimaadka yaraayo ka soo helay ay ku imaaday maxal dhijiray wadanka Kenya afarta xaasna oo ka guursaday xarada qaxootiga waxay sheegtay in uu xarada qaxootiga ka guursaday afarta xaas oonan shilimaadka yaraayo oo kala yimid Mareykanka oo Kenya ku tagay sidaasna uu ku guursaday bal insha Allah ta'ala waxaan isla daawan doonaa hadalkeedii insha Allah duu ilaahay horta waan xariiqa qaxootiga iska xaadiri xariiqa qaxootiga ayuu iska xaadiri qurbahan uu ka tagaalayri waa reer America asalkiisa reer Canada aha meeshan waa laga dhoofiyay sida la ii sheegay la masaafuriyay marka okay Farxiyo waxay sheegtay inuu ninkani laga soo masaafuriyay Mareykanka waxayna waxyaabo oo aan aad u fiicneen ku tilmaamtay laakiin waa fikirkeeda ma dhahayo wuxuu yahay Farxiyo fikirkeeda sababtoo waa fikirkeeda qof walbana fikirkiisa soo yahay ayuu ka dhiibanaya haduu ilaahay okay aniga waxay ila tahay marka hadii loo laabto afar naagood dhibaatada waxay ka jirtaa afar naagood marka aad guursanayso oo leedahay afar naagood aan guursaday maxaa laga rabaa oo shuruuda oo afartaas naagood lagaaga rabaa waa hubaal naag walba waxay u baahan tahay wixii naag ficeeda ay u baahan tahay naag walba waxay u baahan tahay in sida naag ficeeda loo dhaqo naag walba waxay u baahan tahay in qoyskeeda iyo meesha ay ka soo jeedo la xiriiriyo marka haddii naag walba qoyskeedii la xiriirinayo sidii naag difaceeda inay u noolaato ay u baahan tahay afar naagood nin walba awood ma u leeyahay oo ma guursan karaa waan hubaanimo badana waxay ka maseersan yihiin ninkan afarta xaas guursaday oo haddana is ogoleysiiyay oo haddana meel isku keenay laakiin ma dhici kartaa nin walba inuu awood u leeyahay oo afar naagood ku guursado afar naagood oo ku heshiisiyo afar naagood oo hal meel iskugu keeno afar naagood oo dadkoodii iyo qoysaskoodii oo xiriiriyo afar naagood awlaad ay dhaleysay asaga dhalay laakiin awlaad afar naagood ay dhalayeen inuu xamilo awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba ma dhici kartaa okay maxay faa'iidahay leedahay in afar naagood la guursado faa'iido maxay leedahay maxay qasaarahay leedahay faa'iidada ay leedahay dabcan waan iskaga jeednaa sababtoo inaad afar naagood qabto habeen walba guri aad u jiifato waa wax qurux badan nimanka xaggooda markii la eego in afar naagood ay caruur ku dhalaan oo hal meel iskula weynaadaan hal meelna iskula ka degiin caruurtaadina ay iskula ka joogaan xaasaskaagina ay iskula ka degiin taasna waa arrin qurux badan laakiin qof walba ma sameyn karo in afar naagood aad wada qabto nolol ahaan way kuugu fiican tahay dhaqaale ahaan haday aad u awoodo awlaad badanna way ku dhalayaan amba 20 amba 30 gaarayso balse qasaaraday leeyihiin maxay tahay faa'iidadeedii waan taabanay ma wada sheegi karo laakiin qasaaraday leedahay maxay tahay hadii aad afar naag guursato
adigoon dhaqaale aysan kuu saamaxaynin oo wax aad ku kala dabirta aadan haynin afartii naagoodna mid walba meel kasoo qaylinayso adigana ay maslaxo kaaga fadhido afartii naagood mid walba ay meel ku rabto mid kastana ay guri rabto mid kastana ay caruur dhalayso ee daawooyin iyo maxaa la dhihi jiray waxyaabihii nolol maalmeedka loo baahan yahay ma xamili kartaa adigoon awoodaadu gaarsanayn haddaad guursato afar xaas taas jawaabteeda idinkaa la idinkaga fadhaa insha allahu tacaala commentiga igula wadaaga waxay idinla tahay aniga waxay ila tahaan idin dhahay idinkana waxay idinla tahay bal commentiga igula wadaaga waa gartay waxay u tahay rag badan farxad in dad waxaa jiro aan u maleehaynin amba aan awoodooda inay gaarsan tahay weligood aan ku fikirinay afar naagood inta guursadaan ay meel iskugu keenaan laakiin waxaan ogahay maanta inay rag badan ku faraxsan yihiin afar naagood inay wada guursadaan ayna jecel yihiinba laakiin ay ka fikirayaan afar naagood sideed u hayn kartaa okay waxaan kuu sheegayaa marka sidaa afarta naagood haddii aad damacdo aada u hayn karto haddii aad damacdo inaad guursato afarta naagood waad hayn kartaa waxaad u hayn kartaa haddii aad naag walba u sheegtay markaad guursanayso inaad naag qabto ayna ogoshahay marka hore ay ogolaasho kugu soo gasho waad haysan kartaa midda kaleeta haddii ogolaasho kugu soo gasho waad haysan kartaa laakiin marka koowaad waa inaad uga sheekayso in xaas aad leedahay caruur kale aad leedahay daruuftaada intay la egtana waa inaad uga sheekayso si borobaleen uusan kaagaga imaanin waa inaad ugaga sheekayso wax kastoo jira laakiin haddaad tiraahdo saana rabaa okay wax walba waan kuu sameynaya borobaleenku wuu badanayaa afar xaas markaad adiga aad rabto inaad guursato run ahaantii anoo warka soo gabagabaynayo waan ku faraxsanahay in afar xaas wiilkaas leh ee haddana meel isugu keenay ee haddana is-ogoleysiiyey ee ku faraxsan ee mid walba afkeeda ay ka sheegaysay inay ku faraxsan tahay ninkeeda iyo saddexda xaasoo kaleeta ay ku faraxsan tahay run ahaantii waan ku faraxsanaa waxaan u qirayaa inuu yahay qof nolol qurux badan ku jiro qof karti badan qof is-ogoleysiiyey afar naagood ood midba meel ka keentay is-ogoleysiiyey ee meel iskugu keenay waxaan qirayaa inuu yahay qof aada u dabeecad badan run ahaantii wuu iga dabeecad badan yahay aniga ma aaminsanay inaan afar naagood haddaan nin ahaa xataa lacala inaan afar naagood inta meel iskugu keeno ani aan is-ogoley sii karo ma aaminsani laakiin waa arrin guul soo hoyata waaye ragga soomaaliyeedna weliba waxaan ugu hambalyeynayaa inta samayn karto arrintaas inay samayso sababtoo soomaalidu way badanaysaa inta naga dhimato way noo soo laabanaysaa way noo dhalaanayaan sababtoo afar cunug hadduu sanadka kuu dhasho sanadka kale afar cunug kuu dhasho 10 sano meeqay noqon karaan 10 sano markaad afar naagood qabta meeqay noqon karaan caruur badan ay noqon karaan sidaasna waxaa ku badanaysa soomaalida waana guul noo soo hoyatay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jeclahay inaad baruuf garaysaan wiilkaas oo aad ugu hambalyeysaan guusha uu gaaray laakiin ma ahan in aad tiraahdaan wax qalada uu sameeyey saano sameeyey afar naagood sidoo u hayn karaa no ma ahan afarta naagood qofta hobbigeeda hadduu yahay ama ay iyada jeceshahay inuu guursado waa inay guursata awoodeedana ay gaarto because sharcigaa ogoleynayo oo sharcigu ma diidaayo maxaa la dhihi jiray awoodaadu haddayna kuu diidayn sharciguna kuuma diidaayo dabeecadaadana aysan kuu diidayn ood og tahay inaad afarta naagood is-ogoleysiin karta meelna isugu keeni karto waa arrin fiican wuxuu mudan yahay in loo hambalyeeyo ma mudno in la caayo ama la aflagaadeeyo ama waxyaabo aan fiicnayn laga sheego waa wax aada u xun sababtoo qofka bini-aadamka guusha ay gaartay waa loogu hambalyeeyaa waxaa la dhahaa guulaa gaartay aadaadna u mahadsan tahay waxyaabo annaga naga daboolnaayaadna noo dabool qaad waa sax in la yidhaahdo sababtoo ma ahan in la yidhahdo qofka waa xuntahay saana samaysa kan aniga waan fiiriyay social media dad badan oo kasoo hadlay amba dad badan oo ka falceliyay dad waxay uga falceliyeen si mas-uulnimo dad waxay uga falceliyeen si ay ku jirto doqonnimo ay ku jirto oo aragtidoodii ay ku cabireen ma ahan inaad aragtidaada kaliya ku cabirto laakiin waxyiga jiro waa inaad ku cabirto waxa markaad qiimeynayso wax markaad qiimeyn ku sameynayso waa inaad waxdiga jiro amba waqtiga hadda la joogo aad qiimeyn ku sameyso qofku asagaa jooska iskale wuu guursan karaa afar xaas gabadhu hal xaas way guursanay hal ninay guursanay sababtoo sharciga u ogola
u ogolaada hal xaas inay guursato laakiin wiilku inuu 4 guursado sharciga u ogolaada haddii awoodiisu ay gaarto oo shuruudihii looga baahnaa oo la iman karo waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh